fakarkaada filo. qof walba waxa uu yahay waa waxa uu ku fakaro. haddaad ku fakartid meel sarena waxaad gaaraysaa meel sare. haddaad ku fakarta wax hooseeyana waxaad noqonaysaa qof hooseeya oo meel hoose jooga. haddaadan waxba ku fakarina waxba ma noqonaysid. mar walba fakarkaada inta uu gaarsiisan yahay ayuu adigana horumarkaada iyo qiimahaada iyo waxa aad tahay gaarsiisan tahay. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. داوديال كسو دوادا برنامج كمان قلدين ميل والبا الدنيا ka daawaneysaan. barnaamij kamaan guldin waa barnaamij aan ku soo qaadano murtidaas oo inagu dhalisay maan guldintaas oo aan ka helno guubaabo aan ku gaarno guul adduun iyo mid aakhir labadaba. maanta murtida aan ka hadlayno waxay ku saabsan tahay oo ciwaankeedu uu yahay fakarkaada filo. qof walba waxa uu yahay waa waxa uu ku fakaro. haddaad ku fakartid meel sarena waxaad gaaraysaa meel sare. haddaad ku fakarta wax hooseeyana waxaad noqonaysaa qof hooseeya oo meel hoose jooga. haddaadan waxba ku fakarina waxba ma noqonaysid. mar walba fakarkaada inta uu gaarsiisan yahay ayuu adigana horumarkaada iyo qiimahaada iyo waxa aad tahay gaarsiisan tahay. waxaa la yidhaahdaa expect what you accept, oo ah waxaa mar walba filataa wixii adi aad qaabisho oo aad ogolaato. haddaa ku qanacdo nolol hoose aad ku qanacdana expect inaad wax hoose oo qiimo hoose aad helaysid. haddaad ku qanacdo inaad meel sare aad gaartana waxaad filataa oo aad rajaysaa inaad meel sare aad gaaraysid. mar walba waxa aad ku gowracan tahay waxa ay maskaxdaada ay ka fakarayso wey. marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan thinkingka ama fakarka oo ah waxay dhahaan mental behavior, maskaxda dhaqdhaqaaqa ay samayso. qofku wuxuu qiimo ku leeyahay inay maskaxdiisu dhaqdhaqaaqdo. hadday maskaxdii ay fadhido waxnana ay qaban waa qof faaruq ah. maskax faaruq ahna wax ay taraysa ma laha. marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadduu ilaahay idmo aad baana aan rajeynayaa inaan ka wada faa'iidaysan doono waxa weeyaan fakarkaas. marka ilaahay subxaanahu wa tacaalana nebigiisa wuxuu u sheegay inuu ummadda u sheego inay fakaraan oo weliba halhalna u fakaraan, labalabana u fakaraan, maaragtay ay guushooda adduun iyo aakhiro waxay ku gaarayaan inay ku fakaraan. qul inamaa acidukum an taquumuu lilaahi mathnaa wa furaada uma tatafakkaruu. waxaa li rasuul allah waxaa dadka ku dhahdaa war aniga waxaan idiin sheegayaa keliya oo inagu wacdinayaa biwaaxidatin, hal arrin keliya inagu wacdinayaa. halka arrin oo aad guul adduun iyo mid aakhiro labadaba aad ku gaari kartaan oo ahayd waa kelmadda u sheegay kelmadda laa ilaaha ila allah. wuxuu ku yidhi carab iyagoo asnaab iska caabudaya oo aan caqliga ka shaqaynayn oo aan fakarayn oo iska hoganaya intuu yimaado wuxuu ku yidhahda war hal kelima waxaa dhahdaan quuluu laa ilaaha illa allah tuflixuun. halkaa ere keliya ku dhawaaqa waa liibaanaysaane. marka inay ummadda nabi maxamed waxay ku ammaanan tahay inuu diintooda u sheegayso inay fakaraan oo maskaxda ka shaqeeyaan oo caqliga ka shaqeeyaan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuuna siiyey aaladdii aan ku fakari lahayn. aaladdii iyo qalabkii aan ku fakari lahayn waana la siiyey. waxaana la siiyey aragti, waxaana la siiyey maqal, waxaana la siiyey maskax, waxaana la siiyey maan, oo waxaasoo dhan la leeyahay war waa nimco ilaahay inii galaye isticmaala qalabkaas. ilaahay subxana wa tacala isaga ilahay huwa aladii ansha'akum wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata qaliilan maa tashkuruun ama lacalakum tashkuruun. suurata naxl iyadana ay sidoo kale leedahay. marka waxaa weeye ilaahay oo allahay markuu inay abuuray saa inay kaga tegin muxuu inii sameeyey? wuxuu inii sameeyey aragti aad wax ku arkaysaan. wuxuu inii sameeyey maaragtay maqal samac aad wax ku maqlaysaan. wuxuu inii siiyey laab aad wax maaragtay ku weeleynaysaan. marka dadka ka fakara ka sheekeeya oo ilaahay subxana wa taala aalaadkan qalabka uu siiyo ka sheekeeya dee waa cilmi dhan oo ilaa ay hadda culammada sayniska ay maaragtay ay maalinba dhahaan waxbaan ka ogaanaynaa sida ay isugu xiran yihiin indhahaan iyo maqalkan iyo maskaxdan isugu xiran yihiin ay wararka u kala qaadanayaan. maalan annaga miday noo tahay badanaa ee maskaxda oo kale, laakiin iyagu kala qaadayaan brainka iyo mindka iyo maxaan ku ihahdaa mentalkaba way wada qaadaan, way kala qaadaan. maalan anaga hadduu ilaahay idmo maskaxda waxay ku miithaaleen tusaalaha ugu fiican waxa waaye
maskaxda waxay ku miithaaliyaan computerka oo kale hardwareka computerka waa meesha wax walba ay degnaayeen mindka ama anaga maanna waa dhahnaa soomaalida maankana waxay ku miithaaliyaan iyada softwareki programka curinayay oo waxyaalaha sameynayay dadna mindka iyo mentalka labay ka kala dhigaan oo dadna miday ka wada dhigaan maalan waxaa leeyahay maskaxdan hadda marka waxa ishaan wax arkayso ishu waxaa la yidhahdaa waa shaashad waay waa lenseskaas hadda camerado kale waxun bay aragtaa laakiin waxa wax arkaya oo arkaya waa maskaxdii markay aragtay waxay usii gudbinaysaa mindka usii gudbinaysaa oo aan dhahna caqligii markii uu arrinta arko caqliga ayaa wuxuu create gareynayaa perceptionka iyo emotionka waxaanu qofkan uu arkayo hadday yihiin wax laga naxo ama wax lagu farxo ama wax maaragtay la jeclaado ama wax maaragtay la naco waxay tahayba isaga emotionka create gareynaya markuu mindkii uu create garay ama caqliga uu create garay arrintaasna wuxuu usii gudbinayaa qalbigiiyaa markaa weeleynaya afidadii weeleynaysa marka waxay dhahaan maskaxda iyo hadduu alla kuu rooyahay iyo caqliga iyo qalbiguba qaab bay u shaqeeyaan ilaa hadda aan ka hadlaynana cilmigooda la barto oo maskaxdan jirkaadoo dhan iyadaa maamusha iyadaa intaasoo maaragtay unug iyo xubno intaasoo malaayiin oo ku jirto ilahi subxana wa tacala ku abuuray iyadaa mid walba amarkeeda iyo taladeeda siinaysa markii maskaxda wixii ay aragto oo caqliga wuxuu ku hoos noolayaa maskaxda caqligii markii arrintii wuu arkayaa maalan hadda libaax aad aragtay libaaxi markaa aragta caqligii isla markii wuxuu abuurayaa inay meeshii emotionkii cabsida aheedu abuurayaa markuu abuuro caqligii wuu sii gudbinayaa wuxuu u gudbinayaa qalbigii markuu qabto isagaa go-aan gaaraya qalbigana waxaa la yidhahdaa waa melikul acdaa waa boqorka xubnahoo dhan markaasu isagaa wuxuu ku siinaya go-aan ah dhahaya ama carar oo cagta maarata nafta orod bay kugu aamintaa ama dhuumo ama geed kor markaa waxay ahaan lahayd saa libaaxa oga badbaado ama dirir oo la dagaalan isagaa ku amray marka amar ku siinayo marka ilaahay subxaana wa tacala intaas hadduuna siiyey rabbigeen subxaana wa tacaala oo nagu galadaystay oo layidhi ku shukriya waxaan u baahannahay inaan isticmaalno marka bini aadamka markii la siiyey aalaadkii qalabkii uu ku fakari lahaa midku wax ku arki lahaa ku maqli lahaa ku weeleen lahaa wax ku qabsan lahaa marka la siiyey baa haddana sidoo kale waxaa la siiyey qalabkan wixii ooga shaqayn lahaa oo ilaahay wuxuu abuuray dhulkan iyo cirkan iyo hawadan waxaanoo dhan waxaa loo abuuray bini aadamka isagaa marka waxaa la yidhi faker oo maskaxda ka shaqee oo intaa dhulkan aad kala jeexjeexdo oo baddaa kala jeexjeexdo oo waxa ku jira oo ilaahay sira uu ku qoriye ka soo saar isagaa looga dhigay khaliifo ilaahayna subxaana wa tacaala arrintaas wuxuu u sheegay malaa'igta oo wuxuu ku yidhi waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaan dhulka u samaynayaa mid oday maamula oo maaragtay waxa meeshan ku jira maaragtay hoggaankeeda mas-uul looga dhigo marka bini aadamkii ilaahay isaguu siiyey marka aaladii uu maaragtay wax ku qaban lahaa oo waxa beriga ku jira uu ka soo saari lahaa oo waxa badda ku jira uu ka soo saari lahaa oo waxa hawada uu ku jiro ka soo saari lahaa waxaa keenaya waxa waaye bini aadam marka aaladan sidee taa u isticmaalo qalabkii la siiyey uu sidii taa ugu isticmaalo waxaasaa markaa waxay imaanayaan inay wax dhashaan oo qofku maaragtay horumarka aan ka hadlayn uu gaaro qofkii laakiin aan u fakirin waxba ma gaarayo oo waxba qiimo hadda ugu fadhido ma laha ilaahay subxaana wa tacaala markuu bini aadamka arrintaa uu siiyey oo ashyaadii uu siiyey oo siismo keliya ma ahane xitaa u fududeeyey wasakhara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlardi jamiica min ilahay saasuu leeyahay waxaa inii fududeynay wax allaala waxa cirka iyo dhulka ku jira oo dhan baa inii fududeynay yaa loo fududeeyey aayaddaas qeybta u dambaysa waxay leedahay ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun waxaa dhulkan ka faa'iideysanayo oo macnaha ku jira ka soo saaraya oo cirkan ka soo saaraya oo hawadan ka soo saaraya waxa weeyaan dad fakeraaya haddii waktiyo hore bini aadamka la weydiin lahaa oo dadka qaarkood looga sheekeynaa la dhihi lahaa bini aadamka fakarkiisa wuxuu gaarsiin doonaa in intii biro la isku xiro badaha looga goosho oo maaragtay badweyntaas loo kala goosho diyaaradaha hadda la isku xiraaya maaragtay kumbiyuurada qalabkan teknolojiyada aan ahayno waxay ku imaatay faker
bin aadamka alle subxaanahu watacaala maskax iyo aalad uu siiyey dhulkaana u sahlay waxa ku jira ay ku gaareen. marka dad baa intay intaas sameeyeen oo maskaxdii ka shaqeeyeen oo adduunkoodii ay habaysteen oo maaragtay haddii ahaan lahayd systemkana adduunka u shaqeeyo ay dhisteen bay hadda waxay aad ooga fakeraan oo dib ugu soo noqday bini aadamkii. waxyaalaha la sameeyo waxaa ka mid ah in dee dowlad dhan oo ama dad dhan oo jira intii la kala furfuro la kala daadaadiyo saa loo kala daadaadiyo ama dowlad kala daadatay oo kala dhacday in la isku keeno. waxaynu isticmaalaan waxay dhahaan maalan system analysis ama maaragtay system synthesis. marka system analysis and system synthesis waxay isticmaashaa oo ay keentaa waxa weeyaan in la yiraahdo hadda maalan gaarigaas baan aragnay waxaan rabnaa inaan gaarigaa kala daadaadino oo parts inta aan kala qaybino aan parts walba goonida u istaari gareeno. daas marka lagu leeyahay system analysis waay qaabkan markii waxaan la kala dhigo si u shaqeynaa aad aragtid marka la isku xirana oo iyagoo as whole isku xirana la keeno la yiraahdo okay qaabkan u shaqeeyaan. maskaxdii bini aadamka saa u fikraysa marka ay maskaxda ilaahay uu siiyay ay macnaheedu processkan iyo waxaan ay shiideysana procedure la maraa jirta oo qofka bini aadamka markuu fakaraayo ama uu go'aan gaarayo go'aanka ha ahaado mid degdeg ah oo markaa ku dhashay oo ku badbaaday ama ha ahaado mid mustaqbalkiisa iyo aytiinkiisa maaragtay uu ka fakari doono u baahnaan doono processaan marnaa waxay maraan ilaa iyo 5 process uu maraa jirta. processka ugu horeeya waxa waa data. qofku markuu inuu go'aan gaaro oo ama wax uu rabo inuu barto ama inuu maaragtay guursado ama inuu horumar kala gaaro maskaxdan way shaqeynayaan ila aragtidan iyo maqalkan iyo maaragtay aqligan iyo qalbiga saan sheegnayba waa wax isku xiran oo midba mid kale uu la shaqeynayo. marka qaabka ugu horeeya maalan 5 process ay marto waxa waaye sida qaraarka ugu dambeeya qofku uu gaaro waxa weeyaan waa data iyo information iyo knowledge iyo understanding iyo wisdom. waa 5 qaybood. anaga wax laga yaabo mid noo wada noqoto